gaalada salbiyiinta ah iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah waxay bilihii lasoo dhaafay soo qaadeen duulaan ashahaado la dirir ah. waxay kusoo duuleen wilaayaadka islaamiga ah, waxay barakiciyeen dadkii muslimiinta ahaa, waxay boobeen hantidii muslimiinta, waxayna si cad u sheegeen inaysan jiri doonin shareeco islaam oo lagu dhaqmo iyo maxkamado islaami ah oo shaqeeya. waxaa hoggaanka dagaalka, qorshayntiisa, maalgelintiisa iyo qaadistiisaba iska leh saliibiyiinta Maraykanka ah. murtadiintuna waxay u yihiin xaabadii uu colaadaas ku hurin lahaa. mujaahidiintu iyagoo og qorshayaasha cadowga, himilooyinkiisa iyo waxa uu damacsan yahay ay u dejiyeen khidadii iyo tabihii dagaal ee munaasabka ku ahaa. waxaana Allah subxaanahu wa tacaala mahadiisa inay qorshayaashii mujaahidiintu sidii ay u dejiyeen ay u socdaan. maanta oo jimco ah, taariikhduna ku beegan tahay 27 Jamaadu Thaani sanadka 1444 hijri, waxaa Allah subxaanahu wa tacaala mahadiisa ku hirgalay mid ka mid ah khudadii ay mujaahidiintu u dejiyeen inay cadowga dhabarka kaga jebiyaan. ciidamada mujaahidiintu waxay weerar lixaad leh ku qaadeen saldhigga ciidamada ridada ah ay dhowaan ka samaysteen degmada Galcad ee bariga wilaayada Galgaduud. halkaas waxaa ku sugnaa ciidamo murtadiin ah oo ka kala tirsanaa 3 urur oo kala duwan. 2 urur waxay ahaayeen kuwa murtasaqada Maraykanku leeyahay ee danab loogu yeero, iyo 1 urur oo kuwa Turkigu leeyahay ah. waa ciidamo dhalasho ahaan Soomaali ah balse calooshood u shaqaystayaal ah oo wadamadaas aan soo sheegnay ay leeyihiin tababarkooda, hubkooda, mushaarkooda iyo howlgelintoodaba wadamadaas ayaa iska leh. waxaana loogu talagalay in diinta islaamka iyo shareecada lagula dagaalamo. weerarka oo bilowday xilligii salaada fajarka waxa ay ciidamada mujaahidiintu dhowr jiho ka weerareen fariisimayaasha cadowga ee degmada Galcad. waxaana Allah subxaanahu wa tacaala mahadiisa dagaal xoogan kadib ciidamada islaamka u suurta gashay inay jebiyaan kuwii ridada, ayna si buuxda gacanta ugu dhigaan saldhiggii cadowga ee degmada Galcad. khasaaraha dhimashada ee cadowga soo gaaray inta hadda aan ognahay waa 159 isugu jira askari iyo saraakiil. cadowga goobta lagu dilay waxaa ka mid ah saraakiishii ugu muhiimsanayd ciidamada Maraykanku leeyahay ee danab loogu yeero. waxaa ugu weynaa murtadkii loogu yeeri jiray Xasan Tuure, kaas oo caan ku ahaa la dagaalanka islaamka iyo shareecada. meydkiisa goobta ayaa looga cararay. sidoo kale waxa ay ciidamada mujaahidiintu gacanta ku dhigeen dhammaan gaadiidkii dagaal ee uu cadowgu goobta ku haystay, kuwaas oo tiradoodu ahayd 45 gaari oo kuwa ciidamada ah. waxaa iyaguna jira hub iyo saanad ciidan oo aad u badan oo ay ciidamada mujaahidiintu gacanta ku dhigeen. Allah subxaanahu wa tacaala baan uga mahad celinaynaa guushaas weyn ee uu na siiyey. annagu ma aanaan dilin ee Allah subxaanahu wa tacaala ayaa dilay. annagu rasaasta kuma aanan ridinin ee Allah subxaanahu wa tacaala baa ku riday. kibirkoodii iyo gaalnimadoodiina Allah subxaanahu wa tacaala baa halkaas ku soo afjaray. qaala Allahu tacaala wamaa ramayta id ramayta walaakina Allaha rama. daalim noocol ah maxaan doqon isaga yeelay? jirku inuu diidaayo maxaan dusha sare ka eegnay? ma degdegnay xaajada maxaan u dulqaad yeelanay? dabinkaan u dhignay maalintu degalka soo saaro isagoon digniin qabin maxaan kaga daryaan siinay? waxay isku halaynayeen diyaaradaha Maraykanka oo 24 saac korka ka ilaalinayay, balse libaxyada tawxiidku uma joojin oo diyaaradihii oo taagan ayay fooda geliyeen cadowga. markii cadowgii la jebiyey ayna kala firxadeen, diyaaradihii waxay kala garan waayeen ciidamadii mujaahidiinta iyo kuwii murtadiinta ahaa, waxayna duqayn ku bilaabeen murtadiintii firxadka ahayd iyo xiradii oo ay ku hareen gaadiid yar oo baaqi ka ahaa kuwii tirada badnaa ee ay mujaahidiintu ka qanimaysteen xerada. waxaan mar kale u mahad celinaynaa Allah subxaanahu wa tacaala. kadibna ciidamadii mujaahidiinta ahaa ee howlgalkaas fariidka ah iyo kuwii ka horeeyayba fuliyey
waxaan leenahay allah subxaanahu wa tacaala isku dhuldhiga ka bari noqda awooddiina iyo hubkiina allah subxaanahu wa tacaala isu dhiiba asagana talada saarta wax badan baad raadinayseen madaxweynta murtadiinta ee xeryaha muqdisho iyo beledoogle ku xaraysnaa maanta bannaankay idiin joogaan dhiigooda allah subxaanahu wa tacaala ugu dhowaada hubka iyo gaadiidka ay haystaanna waa qaniimo allah subxaanahu wa tacaala idiin keenay ee ka qaata cadowga murtadiinta waxaan leenahay been bay gaaladii idinsoo dirsatay idiin sheegtay diyaarad waddo bannaan oo deex ama xeeb ah idinsoo marisay duur cidlaana idin keentay inaysan idin difaacaynin waad ogtihiin been buu idiin sheegay murtad xasan sheekh oo isagana gaaladu been usoo sheegtay waxa aada la dagaalamaysaan shabaab ma ahan ee allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa iyo diintii aad ku dhalateen ee aad ka ridowdeen ayaad la dagaalamaysaan kasoo laabta gaalnimada kusoo laabta xayndaabka islaamnimada inta aada nooshihiin baad fursad haysataan maalinkii dhimisha mujaahidiintu dushiina ka hilaacdo fursad dambe ma jirto dilkiina waxaanu ka jecelnahay inaad toobad keentaan si aad nooga badbaadaan annaguna aan saliibiyiintaas dalkeenna diinteenna iyo dadkeenna kusoo duushay ugu tafaruqno haddii aad diidaan wax aan gaalnimo ahayn iyo shareeca la dirirnimo waxaad ku bishaaraysataan inaad mari doontaan halkii ay mareen kuwa ay ugu dambeeyeen shataqi iyo tuure iyo kuwii kale ee kasii horreeyey hubka iyo qalabka ay gaaladu idinsoo siisayna waxay noqon doonaan insha allahu qaniimo ay mujaahidiintu xeryihiina ka daldashaan biidni illah qaala allahu tacaala ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illah fasayunfiquunaha huma takunu calayhim xasratan huma yuqlabuun waladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun dadka muslimiinta waxaan leenahay waxa kiristaanka caddaan iyo madow leh iyo murtadiinta la socota ay kusoo duuleen waa diintiina waa dalkiina waa deeqdiina waxa ay barakicinayaan waa maatidiina waxa ay dhacayaan waa xoolihiina waddo aan jihaad ahayn oo idiin furanna ma jirto safka jihaadka soo gala oo kaalaya gaalada iyo murtadiinta nala dila la dirira ninkii gaal dilaa doogsay aakhare ah bulshada ku dhaqan deegaanada ay cadowgu qabsadeen waxaan leenahay dulqaata allah subxaanahu wa tacaala idankiis waa maalmo kooban kuwa soo duulayaasha ahna waxay noqon doonaan sidii hore ugu dhacday kuwii yasooman lagu laayay wabxa lagu laayay hilologaab lagu laayay xawaadi lagu laayay iyo kuwa maanta oo u dambaysa meydkoodu galcadaadsan yahay allahuma laka alxamdu xataa tarda walaka alxamdu idaa radiit walaka alxamdu bacda rida allahu akbar wاlcizaة lilahi walirasuulih walilmuؤminiin walakina akthar الnaasi laa yaclamuun waakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin